بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan idinku la wadaagayaa qisadii nebi Suleymaan oo dhameystiran horta markaynu nahay dad muslina waxa muhiim noo ah inaan qisooyinka quraankeena ku qoran khaasatan kuwa ambiyada nabiyada alayhi salaam dhamaantood ilaahay oo soo diray inaan qisooyinkooda dhageysano waayo maskaxdeena iyo aqligeena ay korinayaan marka mar haddaynu social media ku jirno wax ina anfacaya waa inaynu ka daawanaa ama aan ka dhageysanaa oo aynaan ku lumin sidoo kale waxaan idinku codsanayaa inaad subscribe channelkan kadib aad saartaan markaad muuqaalkan dhamaystirtaan aad daawataan like-ta iyo share-tana aad iyo aad ila soo booqataan aadna waad ii salaamayaa magacaygu waa qabyaaladiid cabdixakiim muuse maalin wanaagsan ama waqti wanaagsan hadba markaad joogtaanba بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى haddii rabbi idmo waxaan sharaxaynaa oo soo gaarnay qisatu nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam ayaynu soo gaarnay waa inagii soo sharaxnay qisatu nabiyullaahi daawuudna sulaymaanna waa wiilkii nabiyullaahi daawuud calayhim assalaam awalan waxaan ugu horumarinaynaa qodobka ugu horeeya nasabu sulaymaan calayhi assalaam ayaynu horta bal abtiriskiisa ayaynu soo qaadanayna qaala alxaafid ibnu casaakir waxa uu yihi taariikhda waxa uu ku keenay kitaabkiisa taariikh wuxuu yihi sulaymaan ibni daawuud ibni yasa marka mar haddii uu yahay nabiyullaahi daawuud wiilkiisii ay macruuf tahay waa sidii aynu soo sheegnay oo nabiyullaahi daawuud aan kusoo sharaxnay waxa uu galaa oo waxa weeye ku abtirsadaa ninka la yidhaahdo yahuuda oo waxa weeye wiilashii ahaa nabiyullaahi yacquub calayhi salaam 12 wiil oo nabiyullaahi yacquub uu dhalay oo u qaybsamay 12 qabiil oo ay u kala baxeen maaragtay reer bani israa'iil marka yahuuda weliba maaragtay waa qabiilkii ugu badnaa oo waxa weeye maaragtay macruufka ayaa nabiyullaahi daawuud ka dhashay hada daawuudna sulaymaanna waxaa dhalay nabiyullaahi daawuud marka waxa weeye saasay yacquub ibn isxaaq ku galaan oo waxa weeye waa min duriyati nabiyullaahi ibraahim ilaahay baana kitaabka ku caddeeyey qur-aanka oo markuu ka hadlayay nabiyullaahi ibraahim fii suurati ancaam ilaahay waxa uu yidhi wa min duriyatihi daawuuda marka sulaymaanna waa lagu daray oo waxa weeye sulaymaan iyo daawuud iyo kulligood markii la tiriyey nebiyadii ayuu ka mid ahaa marka waa macruuf oo waxa weeye khilaaf kuma jiro arrintiisa waayahay waxaa la oran jiray buu yidhi kunyadiisa aburabiic nabiyullahi ibnu nabiyillah macnaha nebi ilaahay ayuu ahaa oo waa macruuf alihi subxaana qaadirkaa baa nebi ka dhigay aabihiina nebi buu ahaa saas weye maaragtay marka nasabkiisa iyo taariikhdiisa qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa sulaymaan khaliifatu daawuud calayhi salaam fi lmulki wannubuwa
nabiyullaahi daawuud waxaynu soo sheegnay waxaan nidhi waxaa ilaahay isugu daray nebinimadii iyo waxa weeye boqortooyadii oo labadiiba isaga ayaa gacanta ku dhigay. haddaba marka labadiiba haddana ilaahay wuxuu isugu daray nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam. waa inagii nidhi markii hore reer bani israa'iil nebinimadana qabiil bay ka dhalan jireen maaragtay oo laawiya ibnu yacquub, maaragtay boqortooyadana qabiil kalea la siin jiray. marka sidaa daraadeed kabacdi markii nabiyullaahi daawuud calayhi salaam uu dilay ninkii dhaalimka ahaa jaaluud, ayaa markaa ilaahay wuxuu isugu daray nebinimadii iyo waxa weye boqornimadiiba. washadadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata fasla alkhidaab. marka boqortooyadii iyo waxa weye kulli waa la isugu daray. kabacdi marka nabiyullahi sulaymaan baa ka dhaxlay oo ilaahay waxa u yihi qaala allahu tacaala wawaritha sulaymaanu daawuuda. nabiyullaahi sulaymaan waxa uu dhaxlay oo ka qaato dhaxal ahaan u qaatay nebinimadii daawuud iyo boqortooyadiisiiba. wa qaala waxa uu yihi yaa ayuha annaas dadow cullimnaa waxaana la baray mantiqa tayr. ilaahay mucjisooyinkii uu siiyey bay kamid tahay nabiyullaahi sulaymaan inuu shimbiraha la hadli jiray iyo xayawaanka. wa uutiinaa min kulli shay, wax walbana waxbaana laka siiyey oo waxa weeye boqortooyadii iyo wanaagii ilaahay uu siiyey oo faraha badnayd inoo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala. waxa uu yihi ina hada lahuwa alfadlu lmubiin. allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa fadliga iyo wanaaggaas xaggiisa ka ahaatay, waana fadli iyo wanaag aad u fara badan oo dheeraado fi suurati annaml. haddaba marka qowluhu tacaala macalshaahidka waxa weye aayadda u keenay halkan wawaritha, waxaa la yihi macnaha ina daawuud calayhi salaam waxa uu lahaa ba la yihi 9 wiil ayuu dhalay ba la yihi, sida ay maaragtay mufasiriintu leeyihiin. sulaymaan marka waxa uu dhaxlay nebinimadii iyo boqornimadii, laakiin meeshaan wawaritha xoolo laga hadli mayo oo waxa weye nebiyada waxaa inoo imaan doonta inaan xoolaba laga dhaxlin. halkan marka waxaa laga hadlayaa wawaritha sulaymaanu, nebinimadii iyo waxa weeye boqortooyadii ayuu dhaxlay. ama markay noqoto xoolo, haddi xoolihii waa la wada dhaxlayaa. qaala ibnu kathir raximahullah waxa uu yihi ay warithahu fi lnubuwati walmulki walaysa almuraadu warithahu fi lmaal. maal laga hadli mayo ee waxaa laga hadlayaa oo uu dhaxlay boqortooyadii iyo nebinimadii ayuu dhaxlay. leannahu sababtu waxa weeye qad kaana lahu banuunun gayrahu, wiilal kale ayuu lahaa iyo gabdho iyo wiilal kalu ahaa. marka sidaa daraaddeed keligii ma dhaxli karo xoolihii. xoolihii waa la wada dhaxlaya. hadday noqoto in la dhaxlo waxa weye xoolihii waa la qaybsanaya. laakiin sida cad oo waxa weye saxiixa wawaritha sulaymaan ay boqortooyadii iyo wuxuu dhaxlay iyo maaragtay nebinimadii ayaa ilaahay ku wareejiyey. waxaana sugnaatay oo waxa weye nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay, saxaabo badan ay warinayaan inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa nuurathu maa taraknaa fa huwa sadaqa. haddaan nahay nebiyada iyo ambiyada waxa aanu ka tagna waa sadaqa weeye, nalama dhaxlo. wa fii lafdin naxnu macaashira alambiyaa, haddaan nahay nebiyadii laa nuurathu ay macnaha xoolo nala kama dhaxlo, xoolo nala kama dhaxlo. xadiidka imaam albukhaari ayaa warinaya, waa xadiis saxiixa. qaala ibnu kathir wuxuu yihi faakbara asaadiqu lmasduuq, ay nebigu ujeedaa calayhi salaatu wasalaam kii runta sheegayey oo la rumaysanayey. waxa uu yihi ana alambiyaaa laa tuurathu amwaaluhum, nebiyada xoolahooda lama dhaxlo, wixii ay ka tagaan waa sadaqo. faltakunu amwaaluhum sadaqatun min bacdihim cala alfuqaraai walmuxtaajiin. waxaa lagu sadaqaysanayaa kuwa fuqarada iyo waxa weeye kuwa baahan, ee qof keligii gaar u qaadanaya ma jiro. wuxuu yihi marka ibnu kathir liana addunya, adduunyada oo dhan ba xaggooda wax qiimaa kama lahayn. kaanat ahwana calayhim, maaragtay adduunyada agtooda wax qiimaa kama ay lahayn. inay marka adduunyo jamciyaan oo adduunyo diyaariyaan oo waxa weye adduunyo ay yidhahdaan hanala ka dhaxlo, sida dadka maanta jooga qof walba uu leeyahay ilmahayga waxaan uga tagaan rabaa, xoolahaan uga tagaan rabaa.
waxaasi waxa weye agtooda ma oolin wey. ilaahay waxa weye baa doortay, jannay u shaqaysanayeen, marka xooluhu qaymo iyaga uma lahayn, agtooda xooluhu wax qaymaa kama lahayn, laakin waxa weye waxay u dadaalayeen xagga aakhiro. haddaba halkaa waxaa inooga sugnaatay oo qodobka inoo caddaaday nabiyullahi sulaymaan qowlka loo jeedo wawaritha sulaymaanu daawuuda inay tahay nebinimadii ee aynan ahayn xoolo, ayaa halkaa inooga caddaatay. qodobka saddexaad waxa weeye sicatu cilmihi wa cadiimu mulkihi calayhi salaam. waxa weeye cilmiga la siiyey nabiyullahi sulaymaan aad buu u ballaaraa oo ilaahay cilmi badan buu siiyey. waxa uuna siiyey boqortooyo aad u weyn oo meel walba gaartay. qaala sulaymaan waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow cullimnaa mantiqa atayr, waxaa nala baray shimbiraha sida loola hadlo. atayr wax walba oo duula baa la yidhahda. wa uutiinaa min kuli shay, ay yacni anahu sala allahu alayhi wasalam anahu calayhi salaam kaana yacrifu ma yatakhaatabu bihi طuyuur biluqaatiha wayucabiru annaasa can maqaasidiha. waxa weye waxa u leyahay ibn kathir raximahullah, waxa uu garan jiray shimbiruhu waxay ku wada hadlayaan iyaga dhexdooda markay wiiq wiiq leeyihiin waa hadalkoodii, oo shimbirahan aad arkay sidoo jalowjalowda ku haya oo wiiq wiiq leh, waxa ay ku hayaan waa hadalkoodii, iyagaa isla hadlaya. wuu garanaya marka, oo nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam wuu fahmaya waxa ay ku hadlayaan, luuqadoodu garanayay, markaasuu dadka u sharixi jiray oo oran jiray waxa waxaasay ka hadlayaan. wakadalika maa cadaa buu yihi ibn kathir min alxayawaanaat, xayawaanka kaloo dhan wuxuu garanayay waxa ay ku hadlayaan. wasaa'iri sunuufi lmakhluuqaat, cid walba wuu fahmi jiray baa la yidhi, oo allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa siiyey weye fahamka. wa qowluhu wa uutiina min kuli shay, ay min kuli ma yaxtaaju lmulku ilayhi min maaragtay wax walba oo u baahnaa boqortooyadiisa, hadday ciidan noqoto, hadday aalad noqoto, hadday maaragtay wixii maaragtay rakuubkii ama wixii wax walba oo boqortooyadiisa u baahnayd, dhaqaale hadday noqoto, wax walba ilaahay waa siiyey. leannahu ilaahay wuxuu usoo kulmiyey min aljinni waalinsi waاطuyuur wاlwuxuush wاshayaaطiin, intaasoo dhan baa ilaahay siiyey oo waxa weye ilaahay usoo kulmiyey. jinnigii waxa weye waa u adeegayaan, insigii waa u adeegayaan, dadkii shimbirihii waa u adeegayaan, xayawaankii waxshiga ahaa xataa waa u adeegayaan, shayaadiintii waa u adeegayaan, intaasoo dhan ilaahay waa siiyey. haddana markaasaa ilaahay waxa uu baray cilmi iyo wax walba ayaa ilaahay baray, oo wuxuu baray inuu xataa maaragtay kulli uu garanayo wax walba oo dadkii ku hadlayaan. laakiin intaasoo dhan markii la siiyey nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam, oo ilaahay saa ugu manaystay, ma uu kibrin, islamana weynaanin, mana uu odhan anaa dadka ka xoog badan, xoog baan leeyahay, midna ma uu odhan, bal waa tawaaducay oo waxa uu yihi ina haada lahuwa alfadlu lmubiin, ay wanaaggaas oo dhan oo la isiiyey allihii subxaana qaadirka aha ayaa igu galadaystay, ee waxaan aniga xooggayga ku keensaday oo aan awood ku leeyahay ma aha, rabbigii subxaana qaadirkaa ayaan ugu shukri naqayaa oo waxa weye u tawaaducayaa, rabbigii waxa weye samawaadkana abuuray, dholalkana abuuray. saasaa la rabaa marka qofka bilowaaniga markii ilaahay uu wax siiyo oo waxa weye wanaag ilaahay siiyo, inuu rabbigii subxaana qaadirka u tawaaduco oo waxa weye uunan kibrin ayaa la rabaa. halkaana waxay inooga caddaatay inuu aad iyo aad waxa weye boqortooyadiis u ballaaray, waana inoo imaan doontaa iyadoo tafsiil ah waxyaalaha ilaahay siiyey oo waxa weye cajiibka. qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa simaacuhu calayhi salaam, isaga oo la hadlaya oo garanaya lifidaabi naml, isagoo la hadlaya quraanjada yaryartaa macnaheedi isagoo fahmaya oo luuqadeedii fahmaya oo waxa weye allihii subxaana qaadirka inooga sheekeeyey. qaala allahu tacaala, ilahi waxa uu yihi waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljini walinsi waاطayri fahum yuuzacuun. waxaa loo soo kulmiyey nabiyullahi sulaymaan waxa weeye junuudiisii, ciidankiisii, jinnigii iyo insigii, shimbirihii, kulli iyagoo lasoo diyaariyey
oo waxa weeye soconaya ayaa loo soo wada diyaariyey oo waxa weeye fahum yuuzacuun ay macnaha iyagoo dhan tartiibkoodi iyo wanaagoodii lasoo diyaariyey oo waxa weeye markaas nidaamsan xataa idaa atow calaa waadi nnaml ilaa ay ka yimaadeen waxa weeye waadi waa wadiga iyo meelaha dee toga ah tog bay yimaadeen waxa weeye quraanjo ay joogto waadi nnaml qaalat namlatun quraanjaa hadashay marka culamadu marka waa isku khilaafeen halkaana waxay yidhahdeen hal kaana sulayman yaclamu gayra mandiqa dayr min saa'ir alxayawaan culamadu waxay isku khilaafeen xayawaanka kale ma garan jiray maaragtay nabiyullahi sulayman mise shimbiraha keliyaa la baray halkaan marka daliil waxay u tahay inuu garan jiray marka waladii calayhi alakthar annahu kana yaclamu aswaata saa'ir alxayawaanaat wa min dalika annaml waxa weeye quraanjada lama yihahdo waa shimbir shimbiraha waxaa la yidhaha waxa duula marka maadaama uu shimbirihii markii hore wuxuu yihi culimnaa mandiqa dayr shimbirihii baan la baray waxay ku hadlayaan halkaan marka waxaa ka caddaatay haddana inuu xayawaanka kalena fahmayey waayo waa kan namla quraanjo wey quraanjaduna ma aha shimbir waana tano waxa weye wuu gartay waxay ku hadlayso marka quraanjaa hadashay yay la hadlaysaa qoomkeedii iyo quraanjadii kale waxay tihi yaa ayuha nnamlu quraanjoy udkhuluu masaakinakum wargala waxa weye waxaad gashaan maaragtay godadkiina meesha aad ku jirteen oo godadkiina gala oo maxaad u gelaysaan laa yaxdimanakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun warya idinku joogsanin oo ida burburinin sulaymaan iyo ciidankiisa haddana way u cududaarto waxay tihi wahum laa yashcuruun iyagoo aan waxba ida ogeyn oo ida dareemeynin halkaa markay marka saa u hadashay ayaa fatabasama daa'ika min qawliha wuu qoslay marka waa dhoolla caddeeyey oo waxa weye wuxuu ku qoslay arrinteedii wa qaala markaasu waxa uu yihi rabbigii subxaana qaadirka ahaa oo wuxuu ku shukriyayaa fahansiiyey waxa ay ku hadlayso wa qaala wuxuu yihi rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay allihii subxaana qaadirka abuu barya wuxuu yihi ilaahu igu ilhaami oo igu hanuuni inaan kaaga shukri naqo wanaaga aad igu nicmaysatay nicmadaada aada igu galadaysatay wa calaa waalidaya iyo waalidkayna inaan ku shukriyo wa an acmala saalixan tardaahu camal wanaagsan ood ka raalli tahayna inaan sameeyo ilaahu igu hanuuni wa adkhilnii haddana igeli biraxmatika fi cibaadika asaalixiin ay aljanna ilaahu addoommadaada saalixiinta iga mid dhig oo jannada gelaya oo waxa weeye wanaaga hele fi suurati namli ayaa aayadahaas kusoo arooray qawluhu tacaala fahum yuuzacuun ay waxaa laga wadaa yusaaquuna wa yuraddu awalahum ilaa aakhirihim liyasiruu fi nidaam macnaha waxaa laga wadaa fahum yuuzacuun ay macnaha ciidanka iyo marka lasoo diyaariyo oo waxa weye la nidaamiyo waxa weye qayb baa loo socdaa tartiib baa lagu wadaa nidaam lama kala dheereeyo haddii ay qolo walba iska tagto qaarna laga taga lama ogola waxaa la rabaa in hadba laisku joojiyo oo laisku celiyo waa nidaamka marka maaragtay lagu wado qaala ibnu kathir raximahullah waxa uu yihi allihii subxaana qaadirka halkan waxa inoogu caddeeyey addoonkiisii nebigiisana ahaa oo waxa weeye haddana ahaa wiilkii nebigiisa nebi daawud calayhi salaam sulayman calayhi salaam inuu maaragtay maalin maalmaha kamida ciidankiisii soo kaxaystay oo waxa weeye uu safar usoo diyaar garoobay isaga oo markaa waxa weeye kulli ay la socdaan dadkii iyo jinnigii iyo waxa weye shimbirihii wuxuu yihi marka ibnu kathir waljinnu walinsu yasiruuna macahu jinniga iyo insigu way la socdaan waadayru saa'iratun macahu tudiluhu macnaha shimbirihiina korkiisay duulayaan oo waxa weye way la socdaan marka wa calaa kulli min hadihi ljuyuush buu yihi ciidamadaas oo dhan buu yihi oo waxa weye shimbiraha iyo kulli iyo maaragtay jinniga iyo dadkaba waxay leeyihiin buu yihi rag nuqaba la yihahdo oo waxa weye waa ragga madaxda oo waxa weeye uga hooseeya isaga oo ilaalinaya oo waxa weeye wada
yarudduuna awalahu calaa aakhirihi macnaha isku celcelinayo oo wada oo nidaamkooda ayay leeyihin oo kala tegi mayaan oo kala yaaci mayaan oo qof walba suu doono isaga socon mayo bal waxa weeye nidaam baa lagu socdaa oo waxa weeye waa la nidaaminaya falaa yataqadamu axadun can mawdicihi qof meeshiisa ka dhaqaaqi karaa ma jiro nidaam bay ku wada socdaan wuxuu yidhi marka xataa idaa atow calaa waadi naml markay yimaadeen halkaa ayo quraanjadii ayaa la hadashay markaa dadkoodii oo waxa weye quraanjadii kale la hadashay fa amarat waxadarat watacadarat 3 arrimood bay samaysay way amartay oo amar bay siisay quraanjadii wayna u digtay oo waxay tiri dhibaataada kusoo socotay diyaar garooba wayna u cududaartay sulaymaan iyo waxa weeye ciidankiisii bicadami shucuur waayo sababtu waxay leedahay sulaymaan iyo maaragtay ciidankiisu kasma idii burburinayaan oo arrintan idinka idinkuma ay talagelin laakin waxa weeye waa arrin maaragtay iyagoon ida dareemaynin bay ku dhacayaan sidaa daraaddeed marka ayay ugu cududaaraysaa oo waxay leedahay maaragtay way cududaaraysaa wahum laa yashcuruun bay macnaha cududaar bay ubixinaysaa waayo hadday og yihiin oo waxa weye ay ujeedaan waxa weye markaa kuma ay tunteen marka waxay leedahay idinku tuman mayaan oo kas idinku tuman mayaan laakiin way u cududaartay oo waxay tiri maaragtay idama garanayaan ee arrinta maaha waxay idinka idinla jeedaan halkaa marka waxaad ka ogaatay inay maaragtay aada iyo aad ay ula dardaarantay qoomkeedii markay la dardaarantayna oo ay tiri gala gododkiina oo diyaar garooba oo waxa weeye iyo idinku tumanin maaragtay sulaymaan iyo ciidankiisana waxay u cududaartay markaa nabiyullahi sulaymaan iyo waxa weye ciidankiisa oo waxay tiri wahum laa yashcuruun ay macnaha idinka idii qasdi mayaane idamaba arkayaan idama dareemayaan dayaa dareemaya quraanshaad haddaad ku istaagtid ma aragtid adiga oo waxa weye waad iska socotaa laakin iyadii qurgooyay u tahay oo waxa weeye way dhimanaysa way wa fi hada siyaq buu yihi marka ibn kathir raximahullah daliilun cala anahu kana daliil waxay u tahay inuu maaragtay rakuub saaraa oo waxa weye ama fardihiisii ama waxa weye maaragtay hadday maaragtay jeel saaraayeen wixii lamida ayay saaraayeen oo usoo diyaar garoobeen ma aha buu yihi sida ay qaar yaraadeen bacduhum anahu kana idaka cala lbusaad busaadka waa inoo imaan doontaa waa wax inta la goglayo dabayshu hoosta ka geli jidhay oo markaa inta la goglo sida dirinta oo kale iyo waxyaalaha salliga lamida ay markaa ku wada istaagayaan dabayshu qaadaysa marka waayo sababtu buu leeyahay ibn kathir haddii ay busaadkaa saaraayeen oo dabayshu ay siday hata quraanshada kuma ay tunteen annahu law kana kadalika lam yanal annamla minhu shay wax gaari lahaa kumana ay istaageen hadday hawada marayaan laakiin halkaa waxaa ka caddaatay xilligaas ay quraanjada uga digayso quraanjada kale waxay socdeen dhulka oo waxa weye dhulka ayay socdeen ee maahe ma aynan ku socon maaragtay busaadka way waxaa kaloo marka halkaa ka caddaatay iyadana inuu nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam fahmayey xayawaanka kale oo waxa weye uu garanayey ayaa laha ka caddaatay walmaqsuud waxa weye ana sulaymaan calayhi salaam fahima maa khaadabat bihi tilka annamla waxaa maqsuudka halkaana ukeenayna waxa weeye ulajeedadu nabiyullahi sulaymaan waxa uu fahmay waxay ku hadashay quraanjadaasi oo quraanjadeedii kale ay u sheegtay min ara'yi sadiid arrin aad u wanaagsan ra'yi fiican bay u sheegtay diyaar garoobay tiri oo waxa weeye godadkiina gala oo waxa weeyaan laydinku istaaga markaasu waxa weye nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam aad ula yaabay arrintii oo qoslay oo waxa weeye calaa wajhi listibshaar isagoo ku farxay macnaha wanaagga ilaahay uu siiyey iyo waxa weye maaragtay sida uu fahmay maaragtay quraanjadaasi wanaagga ay ku hadashay kabacdina markaasuu rabbigii subxaana qaadirkaa ku shukriyey wey way
marka sida dadka qaar ay yidhaahdeen maaragtay qaar baa waxay yidhahdeen nabiyullahi sulayman keligii maahe waxa weeye berigaas xilligaas uu joogay xayawaanka iyo shimbiraha iyo kulli dadkao dhan baa fahmi jiray. kalaamkaasi waa kalaam baatila oo cid fahmi jirtay ma jirto. oo waxay yidhahdeen nabiyullahi sulayman baa wuxuu ballan ka qaado oo wuxuu yidhi intuu xayawaankii iyo kulli khasbay ayuu wuxuu yidhi cid dambe lama hadli kadhaan oo waxa weeye hadalkiina cid dambe waxuma sheegi kadhaan. markaasay aamuseen, waxa waxba kama jiraan. rabbigii subxaana qaadirka ayaa arrintan mucjizo uga dhigay sulayman. waayo haddii dadkao dhan fahmi jireen dee uma aha marka nabiyullahi sulayman maziye keligii lagu ammaano ma noqonayso. laakin waxa weeye ilaahigii subxaana qaadirka mucjizooyinkii uu siiyey ayay kamid ahayd nabiyullahi sulayman inuu keligii fahmo waxa weeye xayawaanka, shimbiraha, waxa weeye kulli waxa yarkaa quraanjo iyo wixii kasii yarba wuu fahmi jiray. kulli marka wuu la hadli jiray xayawaanka o dhan. marka mana ahana wax lala yaabo, waayo rabbigii subxaana qaadirka ahaa in allaha calaa kuli shayin qadiir, wax walba waa awoodaa, ciduu doono ayuu maaragtay wax fahansiiya. way sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay geeda la hadleen, inay maaragtay xayawaan la hadleen, kulli marka waa wax sugan wey. nebi maxamed ba arrintaas oo kale way dhacday. way uma qaala tacaala, ilahi waxa uu yihi markuu nabiyullahi sulayman saa yidhi oo arkay ayuu wuxuu yihi rabbi awzicnii ay alhimnii, ilaahu igu hanuuni oo waxa weye an ashkura nicmataka alatii ancamta calay. macnaha waxa uu ilaahay ka dalbaday inuu ilaahay ku hanuuniyo shukri, leannu haddaan ilaahay shukrigii ku hanuunin xataa shukri lama imaan karo. iyo nicmadan iyo wanaaggan ilaahay siiyey inuu ilaahaygi subxaana qaadirka ahaa uga shukri naqo ayuu haddana ilaahay weydiisanaya inuu ku hanuuniyo oo u fududeeyo. haddana camal saalixa, waalidkiina sidoo kale, haddana camal saalixa ilaahay inuu u fududeeyo oo waafajiyo inuu camal saalixa sameeyo ayuu ilaahay weydiistay, iyo cibaado saalixa. kabacdina markaa uu haddii uu dhinto waxa weeye uu maaragtay ilaahay ka mid dhigo dadkii idaa tawafaahu maca cibaadihi saalixiin, inuu soo kulmiyo oo waxa weeye uu meel la geeyo intii saalixiin tahay, aabihii iyo dadkii ka horreeyey, nebiyadii kulli, iyo nabiyullahi daawud iyo intii ka horreysay iyo hooyadiisii kulli inuu meel la geeyo. wa qaala cabdirasaaq waxa uu yihi can macmar can الzuhriy ana sulayman ibni daawud kharaja huwa wa asxaabuhu. waxaa sugnaatay buu yihi oo soo guurinayaa waa athar nabiyullahi sulayman iyo waxa weeye saxaabadiisii baa baxay iyaga oo roob doonaya. markaasuu wuxuu arkay namlatan qaa'imatan, quraanjo yar buu arkay oo waxa weeye taagan, oo waxa weeye gacmeeda kor utaagaysa, oo waxa weye maaragtay lugaheeda yarkaa kor utaagaysa, ilaahay baryaysa. markaasuu waxa uu ku yidhi irjicuu noqda faqad suqiitum, waa layda waraabiyey, roob doonkii waa laynooga hormaray oo waxa weye maaragtay quraanjadii baa roob doontay, ilaahayna roob bida siinaya, noqda marka. oo markaa maaragtay ayay soo noqdeen. wa qaala sudiy waxa uu yihi asaaba annaasa qaxdun calaa cahdi sulayman, xilligii nabiyullahi sulayman ayaa dadka waxaa ku dhacday baa le abaar xoog leh. kabacdi markaasay soo baxeen oo waxa weye roobdoon usoo baxeen. waxay arkeen marka quraanjo yara oo wuxuu arkay nabiyullahi sulayman gacmaha kor utaagaysa, ilaahay baryaysa oo dhahaysa allahuma ana khalqun min khalqika, waxaan nahay addoommadaada addoommo kamid a, kamana maarana fadligaaga iyo wanaagaaga. fasaba allahu calayhim almadar, ilahay markaasuu madar iyo roob uu keenay. afarkaasi marka imaam suhri baa werinaya, laakin isagoo waxaa jira xadiid laga dhigayo oo marfuuca waana daciif, oo waxa weye nebiga in loo tiiriyo waa daciif wey. sidaa daraaddeed ma aanu keenin oo iskaga tagno. marka waa qowl daciif, waa xadiid daciifa, nebiga in loo tiiriyana ma haboona, waayo mar hadduu daciif noqdo wax maaragtay laga qaadanayo ma jiro. haddaba qodobkaa waxaa inooga caddaaday afraad nabiyullahi sulayman calayhi salaam inuu maaragtay fahmi jiray xayawaanka oo dhan, xataa quraanjada ugu yar inuu fahmi jiray oo waxa weeye kulli uu la khitaabi jiray ayaa halkaa inooga caddaatay.
qodobka shanaad aan usoo gudbayna waxa weeye dikru ma kana min amrihi maca balqis malikata saba. nabiyullahi sulayman iyo arrintii dhex martay gabadhii boqortooyadii saba haysatay oo la oran jiray balqis. gabadhaa iyo nebi sulayman arrintii dhex martay ayaynu qodobkan kusoo qaadayna insha allahu tabaaraka watacaala sida ilaahay inooga sheekeeyey aayadaha qur-aanka. qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi aayadahan horta sheegeynaa kabacdina markaas ayaan aqwaasha culamada u imaanayna. watafaqada aطayra faqaala ma liya laa ara alhudhuda am kana min alghaa'ibiin. waxa uu waayey ba la yihi shimbirkii la oran jiray dayrkii, oo waxa weye adayr waa shimbirahoo dhan, marka hal shimbir buu waayey. markaasuu wuxuu yihi aawo hudhudkii, waa hudhud, marka hudhudkii buu waayey. marka hore waxaa la yidhi adayr, kabacdina isagii baa sheegay, marka wuxuu yihi ma li laa ara alhudhuda. marka shimbirka uu waayey waa hudhud. am kana min alghaa'ibiin, ma maqan yahay? maxaan u arki waayey, miyuu maqan yahay? law cadibanahu cadaaban shadiida, waxaan cadaabayaa markuu yimaado cadaab aada u adag, waa ciqaabaya, macnaha waan ciqaabaya. ow laadbaxanahu, ama waaba gawracayaa gebigiisaba. ow layatiyanii bisulطaanin mubiin, ama wuxuu ila imaanaya xujo adag. saddexdaa mid baa dhacaysa, inuu maaragtay cududaar la yimaado oo waxa weeye uu badbaado marka, oo aan la gawricin lana cadaabin. haddii uu marka cududaar la imaan waayo oo uu iska tegay isagoon cududaar lahayn oo wax saxiixa aan ku maqnayn, marka ama waa la cadaabaya oo waa la garaacaya oo ciqaab baa la marinaya, ama gebigiisaba waa la gawracaya, waa la qalaya. ilahay waxa uu yihi famakatha gayra baciidin, ay hudhudkii, ay famakatha gayra baciidin ay qaliila min azaman, wakti yar kabacdi waaba yimidba, oo hudhudkii waaba iskeenay, oo nabiyullahi sulayman buuba soo ag fadhiistay muddo yar ka bacdi. markuu nabiyullahi sulayman saa yidhi, wax yar ka bacdi waaba kan hudhudkii waa yimid isagoo tawaaducaya, oo waxa weeye maaragtay ayuu u yimid nabiyullahi sulayman. marka hudhudku waxa weye waa shimbirka macruufka oo hudhudka la yidhaahdo. arrimo marka wuxuu leeyahay bay leeyihiin culummadu khaasa, oo waxa weye hudhudka caam uu ku yahay. waxaa la yihi culummadu sida ay leeyihiin khaasnimadiisa waxyaalaha ilaahay uu siiyey waxaa kamid a hudhudka annahu yara almaaa min bucdin, macnaha waxa uu ka arkaa ba la yihi biyaha meel fog, oo waxa weye dhulka hoostiisa. dhulkuu saa u fiirinayaa, wuxuu arkayaa ba la yihi dhulka hoostiisa intaasoo mitir, oo waxa weye aad iyo aad u fog biyaha ku jira buu arkayaa ba la yihi. marka waxaa la samayn jiray ba la yihi uu caam ku yahay bay yihahdeen culummadu, haddaad aragtid hududku meelu inta fadhiistay uu qodqodayo biyaa ku jira ba, oo macruuf wuxuu ku yahay ba la yidhi arrintaa. ilaahay baa awood u siiyey inuu biyaha eego oo uu dhulka hoostiisa wax ka arko, ayaa ilaahay awood u siiyey ba layidhi. marka waxay leeyihin culummadu, haddaad aragtid meel hududku uu faarfaarayo oo intuu fadhiistay biyaha dhulka uu faarfaarayo biyaa ku jira, meesha haddii la qodo biyaa loo tegayaa ba li. wuxuu marka samayn jireen ba la yihi nabiyullahi sulayman wuxuu u diri jiray ba la yihi sahanka biyaha. markay ciidanka iyo meel marayaan ayaa la ohan jiray orod biyo inoo sahan. markaasuu socon jiray, meeshii dhulka uu arkay inay biyo ku jiraan buu markaa waxa weye u tilmaami jir, ohan jiray halkaan, markaas halkaana biyo ku jira. maalin baa marka la waayey, sida inoo imaan doonta. nebiguna waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam hududka in la dilo. xadiidkii cabdullahi ibni cabaas ayaa ku soo arooray isaga iyo dhowr kaloo xayawaana, maaragtay sida maaragtay quraanjada iyo shinida iyo hududka iyo nebigu in la dilo waa nahiyey. xadiidka imaamu axmed iyo abu daawud baa werinaya, waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey fi saxiix aljaamic 6968. waa xadiis saxiixa. haddaba markaa famakata gayra baciidin ay bacda qaliilin ayuu yimid oo u yimid, faqaala markaasuu hadlay, wuxuu yihi nabiyullahi sulayman buu la hadlay, gardaro kuma maqnayn buu yihi, cidlana kuma maqnayn, wax muhiiman ku maqnaa oo cududaar buu keensaday, leanna waa inuu ka badbaado cadaabkii iyo dhibaatadii. wuxuu yihi axadtu bima lam tuxid bihi
waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin waxa aan ogaaday buu yidhi cilmi adigu aadan ogaanin waxaanan kuula imid buu yidhi cilmi oo aan ka keenay cilmi saxiixa arrin saxiixa naba waa war akhbaar saxiixa ayaan ku wadaa oo xaggee ka keentay min saba'in marka waxay leeyihin culummadu wuxuu ahaa ismu rajul oo waxa weeye la oran jiray kab shamas ayaa la oran jiray ba la yidhi oo wuxuu ahaa ba la yidhi qabiilka la yidhaahdo qaxdaan oo maaragtay yaman deganaa laqab bay u ahayd ba la yidhi marka saba leannahu wuxuu ahaa ba yidhi ninki ugu horreeyey oo iyadoon la aqoon markii la isku duulo in ciddii laga adkaado la qafaasho oo la kaxaysto addooma laga dhigto ninkii ugu horreeyey ba la yidhi oo sameeyey markaasaa loo bixiya la yidhi saba marka waa qabiilka waxay ahaayeen qaxdaan oo ku nool yaman ilaa iyo haddana jira oo macruufka wuxuu yidhi inii wajadtu imra'atan waxaan helay buu yidhi qof dumara tamlikuhum inay xukunto macnaa waxaan helay dadkaasaba qof dumara ayaa xukunta buu yidhi wa uutiyat waxaa la siiyey buu yidhi min kulli shayin wax walba waxbaa laga siiyey oo maaragtay boqortooyadeeda iyo boqortooyo cajiibay haysatay walahaa carshun cadiim waxay leedahay buu yidhi maaragtay carshi weyn carshigu waa boqorku sariirta uu ku fadhiisto ama kursiga uu ku fadhiisto wax ku xukumo waa meesha uu fadhiisto wey wuxuu yidhi wajadtuhaa waxaan helay buu yidhi wa qowmahaa qoomkooda cibaadadoodii buu ka hadlaya iyo caqiidadoodii markuu ka hadlay boqortooyadoodii iyo boqortooyada la siiyey iyo madaxnimadii iyo naagta haysata ayuu wuxuu ka hadlay marka caqiidadoodii wuxuu yidhi wajadtuhaa waxaan helay buu yidhi wa qowmahaa iyada iyo qoomkeedaba yasjuduuna lishamsi qoraxday caabudayaan oo u sujuudayaan buu yidhi min duuni illah ilaahay ka sokow ayay qoraxda caabudayaan oo u sujuudayaan wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum shaydaankii ayaa wuxuu u qurxiyey acmaashooda baatilka fasaddahum can asabiili waxa uu ka leexiyey oo ka xiray dariiqii xaqa ahaa fahum laa yahtaduun ma hanuunayaan baatil bay ku socdaan kuma hanuunayaan an laa yasjuduu lilahi aladi yukhriju alkhab'a fi asamaawaati waalard kuma hanuunayaan inay allihii dhulka waxaa ku jira soo saara oo og macnaha allihii og cilmi qeybka samaawaadka iyo dhoolka iyo kulli oo og haddana wayaclamu ma tukfuuna wama tuclinuun waxaad qarinaysaan oo dadka iyo kulli iyo waxaad muujinaysaanba inay u sujuudaan oo u hanuunaan kuma hanuunayaan ee waxay u sujuudayaan qorax aan wax maaragtay ay taragsi jirin haddana caqiidadiisii buu markaas wuxuu yihi allahu laa ilaha ila huwa rab lcarshi alcadiim allihii subxaana qaadirka oo carshigiisu weynaa kuma ay hanuunayaan nabiyullahi sulayman marka waa hadlay waxa uu yihi nabiyullahi sulayman aayadaha horta aan dhamayno waxa uu yihi marka nabiyullahi sulayman qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin ninkii cududaar buu la yimid oo waxa uu keensaday cududaar markaasuu waxa uu yihi marka nabiyullahi sulayman la hadlo wuxuu yihi waan eegeynaa buu yihi ma run baad sheegaysaa mise beenlow baa tahay oo mid been sheegayaa tahay maxaad marka ku eegeysaa idhab bikitaabii haada faalqih ilayhim uma tawalla canhum fandur maada yarjicuun qoraal buu u qoray warqad buu u qoray qaad buu yihi risaaladaydan kitaabkan qaad waa warqad baa laga wadaa markaa uu qoray ugee buu yihi ku dul tuur buu yihi intaad u tegtid waxa weye dusheeda ku rid meesha ay joogto uma tawalla canhum ka jeensa markaa ka leexo eeg markaa bal waxa ay yihaahdaan oo intaad sugtid bal akhbaartooda sug qaalat waxay tiri marka wuu soo tegey hududkii wuu u keenay wuu ku dul riday markaa kabacdi markaa iyadii ayaa bilowday markaa oo kalaamkii bilowday gadaal bay nooga imaan doonaa laakin waxaan sharaxaynaa horta bal intaan ayaynu aqwaasha culamada ku sharaxaynaa qaala ibn kathir raximah llah waxa uu yihi yadkuru tacaala ma kana min amri sulayman walhudhud arrintii hudhudka iyo sulayman dhex martay ayaa ilaahay halkan inoogu caddeeyey
wuxuu yidhi arrintu waxay ahayd buu yidhi ana atuyuura kana calaa kulli sinfin minha muqadimuun. qoom kasta meesha ay marayaan ama shimbiriha ha noqdeen ama kuwa kale ha noqdeene waxay lahaayeen rag hogaaminayey oo ka horreeyey oo nadaaminayey oo madaxa oo uga hooseeya nabiyullahi sulayman, yaquumuuna u istaagaya mima yudlabu minhum, oo markaa wixii laga rabo loo dirayo. leanna shimbirihii waa badan yihiin, marka koox kamida iyaga dhowr kamida ayaa madax u ahaa oo arrintooda loo dirayay, oo waxa weye qof walba wixii uu rabo. markaa nebigay u imaanayeen nebi sulayman oo odhanaya haye maxaan maanta qabanaa, saa iyo saa sameeya, halkaas sameeya, halkaas sameey, kala dirayay. waa sida hadda maanta matalan madaxda oo kale, matalan madaxweynuhu ciidanka fardi fardi uguma tegi karo, laakin waxa weye rag uga mas-uula jira oo waxa weye generaalada iyo ragga madaxda ayuu u dirayaa minay hawshaa hala fuliyo. kama caadat ljunuudi buu yihi maca almuluk, wa kanat buu yihi wadifat lhudhud, arrinta hududka uu ku qaybsanaa waxay ahayd sida uu sheegay cabdullahi ibni cabaas iyo keyrkiiba, annahum kanuu idaa haddii ay u baahdaan waxa weeye biyo ayay maaragtay oo meelaha fogfog biyo uga baahdaan dhulka inay qodaan, ayay u diri jireen oo waxay odhan jireen orod biyaha noo soo eeg, hal bi hadihi albiqaac min ma, macnaha meelahan intaad eegtid bal meeshii biyale aan degne, ile waa la guuraya oo masooro weeye dhulku, waa saxaare, marka noo soo eeg baa la odhanayey meesha biyaha le aan degnay, oo waxa weye markaa adigu soo soco oo dhulka soo eeg. markaasuu biyaha soo eegay. wuxuu yidhi marka wa fiihi min alquwati alati, quwadda ilaahay siiyey oo waxa weeye hududka uu siiyaa waxay ahayd inuu biyaha ka eego taxta tukhum alardi, macnaha dhulka hoostiisa inuu biyaha ka eego. haddii uu marka biyihii halkaa ka helo ayuu tufayey, markaasay qodayeen, biyihii bay u tegayeen markaa. waay maalin maalmaha marka kamid a ayaa biyo loo diray marka, iyadoo la rabay in biyo loo diro ayaa la waayey, oo waxau rabay nabiyullahi sulayman in la yidhaha ord biyo soo eeg, markaasaa la waayey. walam yajid, wuu waayey marka fii mawdici, war aawey buu yihi hududkii, ma lii laa ara lhududa am kana min alghaa'ibiin, ay ma lahu, maxaa ku dhacay, uma jeedo oo ma hayo, ma lahu mafqudun min haahuna, maxaa looga waayey meeshiisii, miyuu maqan yahay mise waxa weye aniga ayaa arki waayey, maxay tahay arrintu buu yihi. markuu hubsaday marka inuu maqan yahay ayuu wuxuu yihi law cadibanahu cadaaban shadiida, ciqaab adag baan marin doonaa. marka mufasiriintu waxay leeyihiin way isku khilaafeen, laakin maqsuudka loo jeedo waxa weeye waa maaragtay hadduunan xujo la imaanin oo arrintiisa uu ku badbaadiyo ciqaab buu maraya, ama waaba gawricin, waayo wakaa yidhi marka dambe ow layaatiyani bisulطaanin mubiin, saasuu ku fasiraya ibn kathir raximahullah. qaala tacaala waxa uu yihi famakata kayra baciid, qaala ibn kathir waxa uu yihi ay fagaaba alhudhudu qaybatan laysat biطawiila. famakata kayra baciid waxaa laga wadaa, masalan daahirka dadka qaar waxay ka fahmi karaan famakata kayra baciid, ay intuu yimid buu meel u dhow fadhiistay nabiyullahi sulayman, macnaha loo jeeda maaha saa, ee waxa weeye fagaaba alhudhudu, hududkii waxa uu maqnaaday muddo yar, ay macnaha arrintiisii meeshuu ku maqnaa, uma qadama minha waa yimid marka, faqaala waxa uu yihi sulayman isagoo la hadlaya, waxa aan koobay iطalactu calaa cilmin ma lam tadlac calayhi, macnaha adiga waxaadan ogaan ayaan soo ogaaday, maaragtay axadtu bima lam tuxid bihi, macnaha khabar iyo arrin adiga aadan ogeyn oo aadan ka warqabin ayaa aniga soo ogaaday. waxaana kula imid arrin saxiixa oo khabarun saabiq, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin, ay bikhabarin saabiq, waxaan kula imid arrin saxiixa oo xaqiiqa ayaan kula imid. markaasuu bilaabay marka arrintuu soo arkay iyo waxa weye xaaladdu say ahayd, oo wuxuu yihi waxaan helay inii wajadtu imra'atan. qaala ibn kathir wuxuu yihi waxa uu sheegay ma kana muluki saba fi bilaad alyaman min mamlakati alcadiima, waxa weeye mamlakadii weyneyd oo taabiciyadana lahayd meelo badan, oo waxa weeye tawaabicati, oo waxa weye tawaabicada waxaa la yidhahdaa maaragtay
meesha markay mulukul yaman ayaa waxay uqaybsantaale in badan markii kulligood qofka isku xukuma oo waxa weeye ximyar iyo xadramut iyo kulli isku xukuma ayaa taabic la oran jira la yidhi atabaabica ayaa la oran jiray dale way waxaa marka halkan laga faa'iidayaa may waa soo socotaa way inoo imaan doontaa waxa uu yidhi halkaa marka ibnu kathir waxa uu yidhi mamlakadaa weynanka badnayd oo aad iyo aad u weyneyd ayaa markaa waxaa dhacday meeshaas ayuu marka kasoo warramay oo waxa weeye uu hududku kasoo warramay way wuxuu sameeyey marka hududkii arrintiisii buu caddeeyey oo wuxuu yidhi anigu arrintaasaan kuula imid waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin nimankaa saba ayaan akhbaartaa kaaga keenay oo arrintaasaan ku maqnay haddana caqiidadoodii buu ka hadlay in macnaha aniga kuma aana maqnayn wax khalada ee arrintaas saxiixa ayaan maaragtay ku maqnaa ayuu yidhi way wuxuu yidhi wa kana almulku buu yidhi qad aala fi dalika azaman ila imra'atin minhum ibnata malikihim macnaha waxaa xilligaa boqortooyada haysatay buu yidhi ibnu kathir gabar markii horena aabaheed uu haysan jiray boqortooyada iyagaa u dhiibay marka sida uu sheegay maaragtay imaamu thaclabi waxa uu leeyahay iyo keyrkiiba markii hore ba yidhaha ana qowmaha markii hore oo xilligaa malakuu calayhim bacda abiha rajulan facama bihi lfasaad aabaheed ayaa boqor ahaan jiray gabadhan balqiisa la yidhi aabaheed waa boqor ahaan jiray markii hore markii aabaheed dhintay ayay boqortooyadii waxay u dhiibeen ba la yidhi nin kale ninkii wuxuu sameeyey ba la yidhi marka fasaad badan iyo dhibaato badan iyo mashaakil badan ayuu dhulkii dhigay markuu dhulkii fasahaadiyey marka oo mashaakil sameeyey oo dhulkii fasahaadiyey ayaa waxaa dhacday markaa oo mashaakil badan uu sameeyey ayaa warqad u qortay ba la yidhi gabadhaan oo waxay tiri waxaan rabaa inaa iguursatid oo waxa weye maadaama aad boqorkii tahay aabahayna dhaxashay markaasuu yidhi waaya markii ay gurigii ugu timid ayay inta khamri ka dhejisay ayay dishay ba layidhi kabacdi markaa ayaa dadkii oo dhan ku farxeen oo la yidhi alla ila wax wanaagsan bay samaysay haddii ay dishay oo waxa weye iyadii baa markaa la doortay oo arrinteedii waxay noqotay arrin aad iyo aad u cajiiba oo waxa weye iyadii baa markaa la doortay wey way waxay yidhahdeen marka culammadu waxay leeyihiin waxaa la oran jiray magaceeda balqiis oo sida ay sheegayaan balqiis bintu yashrax ayaa la oran jiray ba la yidhi wa huwa alhudaad wa qiila waxaa la yidhi sharaxiil ibn dijand ayaa la yidhi marka waxay leeyihiin saba magacaas ayuu maaragtay ibnu saba ayaa la oran ayuu galaa ba la yidhi oo ay saa ugu abtiriyaan qabiilka qaxdaan marka weeye ba la yidhi oo waxa weye qabiilka haddaba qaxdaaniyiinta la yihahdo macruufka ayaa maaragtay arrintaas ay nimanka ahaadeen wa kana abuha min akaabir ilmuluk aabeed wuxuu ahaa ba la yidhi boqoradii waaweynaa oo u telin jiray oo xilligaa waxa weeye u telin jiray ayuu ahaa ba la yidhi markuu aabaheed marka dhintay sida ibnu kathir uu leeyahay ayay qabsatay waqad habata fi saxiixi lbukhaari imam lbukhaari waxa uu weriyey xadiis cawf can alxasan can abi bakrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam lama balagahu markuu soo gaaray ana ahla faris mallakuu calayhim ibnata kisra markii kisra uu dhintay ayay reer faris waa xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayay boqortooyadii waxa ay siiyeen oo u dhiibeen gabadhiisii oo waxa weeye kisra u dhalay markaasuu nebigu waxa uu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'ah ma liibaanayaan oo wanaag ma helayaan qowm waxa weeye arrintoodii u dhiibay gabar oo boqortooyadii gabar u dhiibtay weligood ma liibaanayaan
marka xadiidka imaam albukhaari baa weriyey fi kitaab almagasi oo iyo imam tirmidi iyo ayaa weriyey, waa xadiis saxiixa, iyo imam النisaa'i iyo ayaa weriyey. marka waxay leeyihin culummadu ma banaana inay waxa weeye dadka hogaamiso qof dumara. wa qawluhu wautiyat min kuli shay, wa uutiyat min kuli shay, wax walbaa la siiyey maxaa laga wadaa? ay mima sha'nahu, waxa weye wuxuu leeyahay ibn kathir, ay macnaha wixii boqortooye la siin jiro o dhan waa la siiyey, ma aha in wax walba iyada la siiyey, leanna waxyaalo badan oo nabiyullahi sulaymaan haysto ayaysan haysan. marka laakin wixii ay u baahnayd oo boqortooyada uga baahnayd waa la siiyey, hadday ciidan tahay, hadday dhaqaalo tahay, hadday wanaag tahay, waa la siiyey. walahaa carshun cadiim, ay sariira mulkiha, macnaha boqortooyadeeda aad bay maaragtay carshi weyn bay leedahay, kursi weyn oo waxa weeye laga buuxiyey, dee waa kursi laga sameeyey bu ahaa ba la yidhi, dahab iyo lula iyo, oo waxa weye markaa lagu xixiray sidaan boqortooyinku ay sameeyaan oo kala wey, oo maarata ay faanka iyo kibirka ka wada. uma dakara kufrahum billah, inay gaala yihiin buu u caddeeyey oo ay qoraxda caabudaan oo wax daliila aysan haysan. qaala ibnu kathir wuxuu yidhi waxa uu caddeeyey markii ugu horreysay caqiidadoodii kufri inay yihiin oo gaalnimo ku jiraan, inay qoraxda caabudayaan, laakiin yaa sabab ugu ah oo arrintaas sameeyey? shaydaan baa dhumiyey buu yidhi, oo shaydaan baa u sawiray waxaan cibaadada noocaasa inay qoraxda caabudaan oo waxay arrintaa la yimaadaan. wuxuuna ka leexiyey buu yidhi inay caabudaan allihii samaawaadka iyo dhulalka iyo wax walba ogaa, iyo naftiina waxa ku jira iyo waxaad qarinaysaan iyo kulli ka warqabay oo dhan wuu qariyey buy, ee wuu ka leexiyey buy. kabacdina wuxuu sheegay allihii subxaana qaadirkaa inuu carshigiisu aad u wen yahay oo caqiidadiisi buu ka hadlay. wuxuu yidhi ibnu kathir raximahullah, fa cinda dalika bacatha macahu sulaymaan calayhi salaam, markaas ayuu wuxuu la diray buu yidhi oo u dhiibay kitaab, risaalo u qoray oo wuxuu yidhi isagoo ugu yeeraya diinta saxiixa iyo inay kasoo noqdaan waxa ay ku jiraan, ayuu nabiyullahi sulaymaan kitaabkii u qoray markaa, oo daacada ilaahay ay usoo noqdaan, ilaahayna ka cabsadaan ayuu amray. muxuu amray marka? waxa weeye wuxuu yidhi kitaabkaygaan qaad buu yidhi, idhab bikitaabi hada faalqih ilayhim uma tawalla canhum fandur maada yarjicuun. orod buu yidhi kitaabkan qaad oo u gee oo waxa weeye u sheeg. maxaa marka kitaabkii ku qoran? markii ugu horreysayba nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam kitaabkii ayuu u qoray oo waxa weeye ku caddeeyey kitaabkani inuu yahay maaragtay kitaab maaragtay nabiyullahi sulaymaan ka yimi. wuxuu yidhi idhab bikitaabi hada faalqi ilayhim uma tawalla canhum fandur maada yarjicuun. markii kitaabkii marka uu geeyey oo ay ku riday oo kitaabkii u dhiibay oo hududkii uu ku tuuray kitaabkii, ayay markaa kitaabkii akriday. maxaa ku qoran marka? qaala allahu tacala ilah waxa uu yidhi markay soo kulmisay gabadhii dadkeedii, oo waxa weeye gabadh xoogaa caqli badan bayba ahayd, waxay isugu yeertay madaxdii iyo golihii shuuradeeda iyo baarlamankii. qaalat waxay tihi yaa ayuha almala-u inii ulqiya ilaya kitaabun kariim, aniga waxaa laigu soo riday bay tihi kitaab wanaagsan, inahu min sulaymaana wa inahu bismi illahi raxmaan raxiim. wuxuu yidhi waxay sheegtay kitaabkii meesha uu ka yimid, waxay tihi inahu min sulaymaana, nabiyullahi sulaymaan buu ka yimid kitaabkaani, oo waxa weeye wa inahu bismi illahi raxmaan raxiim buu ku bilaabay. anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiin, ii imaada idinka oo muslimiina, oo waxa weeye ha igu maaragtay kibir hala imaanina, oo ha isla weynaanina, haddaa isla weynaataan dee gacan baan wax idinka qabanaya. qaalat way hadasho waxay tihi yaa ayuha almalow aftunii fi amri ma kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun. waxa weeye nimankii madaxdaa bay la hadashay, hayabay tihi ka warrama arrintan, bal ii fadwooda arrintayda, maxaan sameeyaa? ila taliya. way la tashanaysaa, ila taliya bay tihi maxaan sameeyaa? anigu weligay kuma degdegi jirin arrin aanayda kala tashanay. qaaluu waxay yidhahdeen naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin waalamru ilayki fandurii maada taamuriin. annagu waxaan nahay bay yidhahdeen niman xoog leh, awood leh, wax walba haysta, arrintana go-aankuna aduu kaa go-a. annaga go-aan hana weydiinin, ciddaa tira ku duula waa ku duulaynaa, xoog baan leenahay, wax walba waa samaynaynaa, laakiin adigaa go-aanka iskale.
walamru ilayki fandurii maada ta'muriin. waa arrin marka aad iyo aad u cajiiba. nimankii dhammaa oo ay la tashanaysay marka oo waxa weeye ay talada ka rabtay maxay ku jawaabeen? waxay yidhahdeen qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin waalamru ilayki fandurii maada ta'muriin. annaga awood baan leenahay, xoog baan leenahay, ciidan baan haynaa, meel walba waa ku duulaynaa, laakiin adigu arrinta aday ku taalla, go-aanka adaa iska leh, adaa caqligii iyo go-aankii iyo xaggaaga weeye, annaga hana weydiinin wax go-aan iyo caqliya midna hana weydiinin. subxaana allah. saa markay yidhaahdeen ayay hadasho waxay tiri qaalad waxay tiri iyadaa caqli dhaanta ina almuluka ida dakaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adila wakadalika yafcaluun. waxay tiri war boqortooyada sulaymaan waa boqortooyo xoog leh, haddii ay boqoradu meel galaanna waa baabi'iyaan, dadka madaxda ana dulli bay ka dhigaan, oo waxa weeye hadday inagu soo duulaan wayna baabi'inayaan bay ka wada. laakin waxaan samaynayaa bay bal xal kalaan raadinaya, wa inii mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaadiratun bima yarjicu lmursaluun. bal waxaan samaynayaa tiri hadiyad baan u dirayaa, laaluush hadiyad baan dirayaa, oo waxa weye bal waan iska maslaxaynaa, bal waxaan eegayaa waxay la soo noqdaan nimanka loo diro oo wafdigiibaa marka nabiy llahi sulaymaan u yimid. falama jaa sulaymana qaala tacala ilahi waxau yihi falama jaa sulaymaan, markay u yimaadeen sulaymaan oo wafdigu u yimid ayuu nabiy llahi sulaymaan hadlay. xoolihii bay keeneen, dahab iyo adduun iyo warqad iyo. qaala waxa uu yihi atumidunanii bimaal, ma maal baad aniga ii keenteen ood isiinaysaan? fama aataaniy allahu khayru mima aataakum, waxa ilaahay isiiyey ayaa ka khayr badan waxaad haysataan. bal antum bihadiyatikum tafraxuun, idinka ayaa hadiyada ku farxaya oo markaa hadiyada isa siisaan ku farxaya buu yihi, ee aniga hadiyad agteeda qiimo kama le. ba ufiirsama hadiyada marka bihadiyatikum, alhadiyatu waxa weye hadiyadu dhowr nooc oo qaybsantaa. mar xaaraan bay noqotaa, marna makruh bay noqotaa bay yidhahdeen culummadu, marna waa mubaax, marna waa wax wanaagsan bay dheheen. waxay yidhahdeen hadiyadu mar waa xaaraam haddii ay tahay xukaamta iyo qudaada iyo madaxda hadiyada loo geynayo iyadoo maslaxad iyo laga rabo in maaragtay laaluush iyo looga dhigayo, waa xaaraam. iyo dadka qudaada maxkamadaha jooga lama ogola. marna waa makruh bay dheheen, oo hadiyada qofka gaalkaa la siinayo oo waxa weeye haddaan diintii lagu soo jiidanaynin oo waxa weeye aynan ahayn maaragtay mualafat alqulub, waa makruh bay dheheen. laakin waa banaan tahay, waa karaahiyo. marna waa mubaax bay dheheen, waxay dheheen waa mubaax ama waaba manduub oo way wanaagsan tahay. waxa weeye waa hadiyat lmu'min liakhiihi lmu'min, qofka mu'minkaa walaalkii hadiyada uu u geynayo markii caruuri u dhalatay iyo arooska iyo waxyaalaha noocaasa. nebiguna wuxuu yihi tahaadu taxaabu, war isku hadiyeeda waa isjeclaanaysaane. waxaa weriyey rawaahu abi yacla fi musnadihi, ayaa xadiidkaa werinaya, waana xadiid xasana sida sheekh albani ku cadeeyey fi irwaء اlqaliil raqamka 1601 iyo fi saxiix اljaamic 3004. waa xadiid xasana. halkaa marka nabiy llahi sulayman calayhi salaam waxa uu yihi hadiyadiina ku farxaysan, irjic ilayhim buu yihi falana'tiyanahum bijunuudi minha, waxaan ula imaanaynaa ciidan adag oo aynan iska celin karin, laa qibala lahum biha, aynan awood ulahayn inay iska celiyaan, walanukhrijanahu minha, waana ka saaraynaa meesha ay joogaan, ka qaadaynaa adilatan wahum saagiruun, iyaga oo dulaysan oo waxa weeye aan wax qiimaa lahayn ayaanu meeshaana ka saaraynaa oo ka qaadi doonaa ee u sheebale. way haddaba marka halkaa arrintii markay halkaa gaadhay nabiyullahi sulayman calayhi salaam, qaala ibnu kathir wuxuu yihi nabiyullahi sulayman markuu kitaabkii u qoray oo u diray oo waxa weeye uu maaragtay ugu yeerayey cibaadada ilaahay, daacadiisa inay adeecaan, maadaama uu isagu yahay boqorkii, uu yahay maaragtay nebigii ilaahay, inay adeecaan oo soo raacaan ayuu ugu yeeray, ay kana soo noqdaan baatilka iyo wax ay ku jiraan iyo gaalnimada inay ka soo noqdaan oo ay arrintiisa uhogaansamaan ayuu ugu yeeray.
oo wuxuu ku bilaabay wuxuu yidhi anlaa tacluu calay ay laa tastakbiruu can daacati daacadayda iyo inaad amarkayga yeeshaan ha iskala weynaanina haddaad iskala weynaataan halaag baa idinku dhacaya iyo dhibaatay ogaada oo arrintayda ha diidinina miyay yeeleen marka